waa madal aad u qurux badan oo kulmisay dhammaan dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Gado ee ku sugan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. waxa uu ahaa kulankoodii saddexaad oo ay isugu yimaadaan dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Gado kuna bahooday madasha Gado Intellectual Forum ayaa waxa ay ka qabsoontay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay dhammaan dhalinyaro ka kala timid 17 degmo ee gobolka Banaadir. ujeedka kulanka ayaa waxa uu ahaa ka doodista dastuurka madal ay yeelanayso iyo qabsoomida guddiyo farsamo oo soo qaban doono doorashada guddoonka iyo labadiisa gole. inta ay xafladdu socotay ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay gabayo iyo maansooyin ka turjumaya gobolka Gado. waxay tiri gadaan ahay anigu iyo waxaan ahay gablan aan wax dhalin haddaan ahay gobol dalka ama cid gaarihi iga naxdaa Kenyan ima gaawiyeen dhashayda ma gabawareen intay geedaha jaraan isgaarsiinta ma gubeen dhibkan gondahayga yaal gurtiya dhaqanka ma hadlaan dawladii ima gurmato oo dhalani ima guntadaan malihi gacal iyo xigaal malihi garwadeena dhaqan golayaashii ani matalay kuwii kala goohayeen markay xilka goobayeen lawaa meel ay galeen madaxdan kala gooshaya garoomada ciyaarihiyo gagiya naashnaashaya galina ima soo maraane maxaa gaar la iiga dhiga gadaa hadashay moogtaa mise cadaawuhu garbay aniga ii garaacino dadkayguba wuu igada. ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay garyaqaan Cali Sheekh Aadan Cali Soomaali waxa uu sheegay in ay tahay lagama maarmaan in ay madashu dastuur yeelato. kow mabaadidan ka duulin waxa weeye inaan nahay Gado Intellectual Forum aan nahay qabaa'ilka gobolka Gado dego yani inta dadka fadhiyo waa aqoon-yahano waxay ku dooran doonaa kartidooda iyo aqoontooda laakiin fikradda qabiilka iyo qabaa'ilka iyo midna kuma shaqeyn doono wadanka 30 sano burbur ku jiray gobolkanaga gobolada uu ka hooseeyaa waa isla qirnay marka waxaan rabnaa scope cusub ama indho cusub inaan ku fiirino aan la imaano wax ka duwan wixii hore arrimaha odayaasha dhaqanka ay leeyihiin waa iska dayn doonaa marka waxaan nahay Intellectual Forum ama aqoon-yahano mid labaad waxa weeye ururka ama madashu ma ahan madal siyaasadeed macnaha siyaasaddu waxa asal waa interest ama faa'iido iyo waxa adigu ka helaysid laakiin annaga waxaan rabnaa maadaama lagu kala aragti duwan siyaasadda oo la isku hayo in aan annagu ka shaqeyno wax aan siyaasad ahayn oo ah arrimaha bulshada iyo development-ka horumarinta marka dastuurku wuxuu ka duulayaa inuusan madashu ahayn madal siyaasadeed sidaas daraadeed qodobada dhan waxay u adeegi doonaan aragtidaas qayb ka mid ah aragtida kale ee dastuurku ka duulaya waxa waa dimuqraadiyadda waxaan rabnaa waxaa laga cabtaa maamul xumo gobolka ka jirto iyo nidaamka siyaasadeed ee gobolka waa laga cabtaa maadaama aan rabno inaan wax ka bedelno oo wax ku kordhino waxaa saldhig u ah dastuurka ama madasha dimuqraadiyadda waxaan ahay nin dhalinyaro ah waxaan si kal iyo laab ah uga shaqeyn doonaa ama aan u matali doonaa dhalinyaradan wajiyada quruxda badan leh inaan maaragtay gobolka Gado aan u nasab sheegta aan si fiican maaragtay baahidiisa wixii karaankayga aan ka gaarno waxaan la tashan doonaa insha Allah tacaala mar walba rag inaga horeeyay dhalinyarada ahaa ee soo qaban qaabay barnaamijkan ee si voluntary ah uga shaqeynayay anigana insha Allah tacaala maalkayga iyo naftayda iyo xoogayga iyo dhiigayga iyo dhacankayga dhammaan waxaan gelin doonaa insha Allah tacaala qaabka uu gobolkaas u horumari lahaa waa guuleysanay waxaana loo baahan yahay horsocod haddaadan waxba haysanin wixii ku soo galaba dheeri bay ku tahay hadaa rabtaad meenaysa aad waxaan kusoo gabagabeynayaa marka waa mahadsan yihiin Bah TV ka soo qaybgalayaasha dadkii yimid waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii afkaarta adag watay oo waliba aad su'aalaha uga qabay si ay u ogaadaan inaan meeshaan waxba lagu maartay lagu khaldin inaan dadka waxba loo mar hawaabin inaan magaranaysa dadka jeebka lagu shuban awalba dhulka laga soo barakiciyay waxaan rajaynaynaa in nimankaas ay shaqo fiican noo qabtaan haddii Ilaahay yiraahdo. madashan ayaa fadhigeedu ugu weyn waxa uu noqon doonaa magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado iyadoona la gaarsiin doono degmooyinka kale ee gobolka Gado iyo dalka dibadiisa. Maxamed Cabdi Aadam, telefishinka dalka, magaalada Muqdisho.